sidee buu qofku ku noqon karaa bay isweydiin leh qof dhaqan fiican maadaama ay qiimaha intan leeg diinta iyo dhaqamada bini aadamkaba akhlaaqda ku leedahay waa maxay wadada loo mari karaa ugu horreyn waxaan leenahay akhlaaqdu qaybi waa fitri waa abuur qaybi waa abuur qaybina waa muktasab waa wax la barto oo tadriib iyo training waa wax tababar loo galo si aad naftaada u dhisho oo qurunka uga dhisho oo aad ka dhigtid qof suuban oo hagaagsan nabiga calayhi salaatu wasalaam wafdi baa u yimi nin ashaj cabdilqays la yidhaahda uu la socdo ninka kan wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inna fiika la khaslatayn yuxibuhum allah waxaad niya u leedahay laba dhaqan oo ilaahay jeceliyey laba dhaqan oo ilaahay jeceliyey wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam riwaayaadku waa kala gedisan riwaayadda muslim waxay sheegaysaa alxilmu walanaah dulqaad iyo kaadsiiyo hubsiino waxaa tahay qof dulqaad badan oo dulqaadku qofku inaanu wax yari ithaara ku samayn inaanu kicin soomaalidu waa dad soodhaa inta badan waa dad aad ugu yaryahay dulqaadka iyo sabirku laakiin nebigu ninkan wuxuu ku ammaanaya inuu yahay qof deggan marka hore oo anaa leh deganaanshiya leh dulqaadna leh riwaayadda imaamu nasaa'i say sheegayso wuxuu ninkii weydiiyey shay-un jubiltu calayhi aw shay-un atakhallaqu ma wax ilaahay igu abuuraybaa mise waa dhaqanaan kasbaday ma dhaqanaan yeeshay anigu iyo xirfad ku keenayba mise waa wax ilaahay subxaana wa tacaala igu abuuray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa bal jubilta calayh maya labada tan adigu waa sajiya waa abiica ilaahay subxaana wa tacaala kugu abuuray idan qaybi baynu leenahay dhaqanka waa abuur وواك إلهي قرآنك وكتل ماما يا سبحانه وتعالى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا عيسى إلهي مركو مريم السينة يوغو بشارين ملكو يمي وحلايها وحا ربا إصادري سيان كوغوه بيو غلاما زكيا غلان لطهري ويل فضيلة ونوته waxay culimadu yidhaahdaan min tabcihi bay ciise ka mid ahayd in sidana ilaahay u abuuray subxaana wa tacaala idan waxaan leenahay akhlaaqiyaadka qaybi waa abuur oo dee waynu kala cadho badannay hebel qofna waxaa laga yaabaa inuu marka laba eray la yidhaahdaba kaco qofna inuu degan yahay oo uu dulqaato waa kala sabir badannay waa kala abuurkeenna hore laakiin haddana waxay leeyihin culimmadu qofka bini aadamkaa inta la tababaro ayaa la gaadhsiin karaa inuu dulqaad yeesho inuu cadhadiisu degto inuu gacan furaado wax allaaliya waxaynu fadiilo u naqaano wanaag iyo dhaqan u naqaano qofka waa loo rabbayn karaa bay leeyihin haddii la rabbeeyo dee xayawaan baa la rabbeeya ama bini aadam baan la rabbayn karaynin xayawaankaa kaynta ordaya ayaa la qabtaayo inta la tababaro waxaad arki qaar shabeel tababartay ama libaax tababartay libaax iyo shabeel haddii la tababaray ma qof bini aadam oo nool baan la tababari karaynin marka saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo qaybta mukhtasabka ee bini aadamku uu hanta ka warramayabaa wuxuu yidhi innama alcilmu bitacallum وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى نبي عليه الصلاة والسلام حديث كذا قطني ورينا أيه شيخ الألباني حسن كنت المامي وحلي علمه برشو كوي ماضى أنبياء ذا وحي وسود دقم ويانا ضدك أنت كله وحبايب برتين وحا خبير لشيء عالم لشيء وقف وقت يجهد قليل إذا علمه برشو كوي ماضى أبو نبي قولي وحكلون نبي قولي دلقات كنا dulqaad barashu isna ku yimaada oo qofka bini aadamka ahi waa la gaadhsiin karaa xad uu dulqaato laakiin wuxuu u baahan yahay ciddii riyaadada nafsiga ah tababarka iyo tadriibka dhabta ah siin lahayd sida jidhkaagaba loo tababaro qofka ciyaartooga ah
halka inta banaanka loo saaraba la baraa jirkiisa inuu flexible noqdo inuu murqaya yeesho inuu ka noqdo qof bini aadama baa midna qaarka sare loo weynayn karaa midna qaarka hoose loo weynayn karaa waayo waa qofba sida loo tababaray kuwan feertama waa aragteen garbaha iyo tuurta iyo labada gacmood intaasaa weyn mijaha kuwaygoo kalu leeyahay yacni maaha qof xoogan maaha sidaa awgeed waa kuwan long tenniska cayaara xataa labadiisa gacmood baa kala weyn tuu ku cayaaraa weyn ka gurranna bidixdaa weyn ka midigtaana midigtaa ka weyn gacantiisa waayo tani exercise ka badan bay heshay ta kale intay helayso si awgeed qofka bini aadamkaa jirkiisa waa la tababari karaa waxaa la mida naftiisana waa la tababari karaa sidaa jirkiisa riyaada loogu sameeyey ayaa riyaada nafsiya loo samayn karaa oo qofka la bari karaa inuu dul qaato inuu hadal fiican ku hadlo inuu dhaqan wanaagsan yeesho inuu cadhadiisa qarsan karo inuu wax bixin karo inuu dadka ixtiraami karo inuu waayeelka tawqiirin karo waana waxa loo furtaba dee madaaristan iyo iskuulladan iyo dowladuhu waxay wasaaradka dhan u samaystay waa kan innagu waxaynu haysanaa meelaha la tago in muxuu cilmi soo bartaa la isweydiiya waxa ka fiican inaad tiraa muxuu dhaqan barta ilmuhu muxuu isbeddel samaynaya si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay xilbigu iyo dulqaadku waa wax la barto war ninkii khayr raadiya waa la siin buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninkii shar ka dhowrsadana waa laga dhowri buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam walidalik buu nebigu wuxuu tilmaamayaa xoog badnidu ma aha inaad qofka legdi karto ee xoog badnid buu nebigu yidhi waa qofka naftiisa hanta markuu cadhoodo bini aadam aan cadhooni ma jiro bini aadam aan hoosta ka guban marka erayada qaar ama waxyaaba qaar lagu sameeyaa aanay dhibini ma jirto laakiin waxaa lagu kala gedisan yahay jawaabta aad qaadanayso marka lagaa cadhaysiiyo miyaad cadhadaada xejin oo si qof miyir qabaad u hadli mise waad waalan oo waad burqan oo afkaad furan soomaalidu intuu waxuu doono dhil iyo dherigaba jabayaa buu yidhaha waan cadhooday dee lama waasho haddaad cadhooto waxay haddaad cadhooto inaad isku daydo inaad cadhadaada kontarooli kartid inaad naftaada xejin kartid si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay xoog badnidu ma aha muuqaalkan sare iyo jidhka xooggane xoog badnidu waa qofka naftiisa kontarooli kara xejin kara nin saxaabiyaa nebiga u yimi oo wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo calayhi salaatu wasalaam ila tali awsini nebigu wuxuu ku yidhi laa taqdab cadhoon markaasuu faradada miraaran waa ku celceliye ila talidii xadiiska bukhaari warinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam uma dhaafin laa taqdab markuu yidhaahda ila talibaha cadhoon buu ku yidhi waxa ka muuqata ninka kan inuu nin xidda kulul ahaa nin sharaarada yara loo kale laakiin waxaa la siinayaa daawada isaga u cuntanta nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa waxaad arki doontaa mid la ila tali oo wuxu sheegayo mid kaloo wax weydiinayo wuxu sheegayo macnaheedu maaha inay axaadiistan iskhilaafsayin macnaheedu wax weeyaan nebigu tabiib buu ahaa calayhi salaatu wasalaam dadkan dawaynaya bulsho uu yaqaanaybu wuxuu dawaynayaa xanuunnada ay qabaan wax ay hayaan qof aad ku og tahay inuu sharaaro kulul yahay hadduu ku yidhaahda ila tali dee talada ugu fiicane la siiyaa wax weeyaa waa niyow deg cadhoon marka la leeyahay ma waxa weeyaan dhiiggaagu yuu karin oo cadhaha dareemin qof bini aadam aan cadho dareemini ma jiro qof bini aadam aan cadho dareemin marka la kiciyaa ma jiro laakiin waa maxay waxa weeyaan waa naftaada tababaroo waxaad ku tababartaa inaad gaadho walkaadimiina alghayb ilaahay qaar buu wuxuu ku tilmaamayaa kuwa af xidhaya cadhadooda kuwa kadmi ku samaynaya ama xidhaya cadhadooda سأوجد بحديث ينوت المامية وإنما الحلم بالتحلم دلقات كون يوحل برطه هذا وحل لنا هي وحل إلى هذا أخلاق ذو قيبنا وطبيعة إلهي كوا أبوري وكل الدقس السني تتكبر با إلهي ودلي إن أنا أدونك قلبي جود بدقين قعنته ضيف الراطه لكن هذا قف مسلم وربطه هي واد برنكرته in gacantaadu furraato gacan furridu maaha markaad xoolo badan hesho inaad wax bixiso waxa yar baa wax laga bixiyaa qofka waxa yar wax ka bixin karaa waxa badanna wax ka bixin karaa waa wax la baran karo
inaad xilmi yeelato waa wax la baran karo, inaad dadka ixtiraamto waa wax la baran karo. weliba schooling systemku iyo malcaamadaha iyo madaaristu marka aan afkaartani bislaanin innaga waxaynu dadka barraa markaa waxa weeyaan cabsi. macallinku markuu soo galo yararku inay sidii jiir la qabtay sida taagaanuun isnabaan, markuu baxana inay buuqaan, waayo wuu baqayee muu baranin in la deganaado. maad u tababarin qofkani inuu deganaanshiye heli karo, maad u tababarin qofkani si xasiloon inuu u socdo, ee waxaad u tababartay ushaa markuu arko iyo markuu adiga ku arkaba inuu istaago, markaad adigu baxdana inuu wixii doono sameeyo. idan cabsidu maaha wax biniaadamka lagu tababaro, biniaadamka waa la traingareeyaa, si kale wax loo baraa. si awgeed waxaynu leenahay akhlaaqdu wax la barto iyo wax abuuraba way leedahay. taabuurkaana waa la sii xoojin karaa, meelaha aad hanjafka ka gaaban tahayna waa lagu kamili karaa ama waa lagu dheerayn karaa. waxaanad ogsoonataa, waxay dhahdaan culammadu iyagoo aayad qur-aana daliishanaya, aadanuhu laba ceebood buu leeyahay bay yidhaahdaan, ama laba cawro, laba ceebood oo u baahan in la qariyo buu wada leeyahay. labada saw'aba ilaahay sutra buu u sameeyey, wax lagu qariyo. cawra waa cawradan jidhkii aynu naqaano, waxaynu ku qarinnaa dharka, isla markaana waynu isku qurxinnaa. dharka waxaynu u xidhannahay sababo badan, laakiin sababta koowaad waxa weeyaan inaad cawradaada asturto. sababta labaad aynu u xidhannaana waa maxay? waa inaynu isku qurxinno, oo dee cawrada mara kastoo isku duuduubna waa qarin lahayd, laakiin waxaad mid gaara u tolatay ee u soo kaakaawadaysay ee saan ugu gashay inay liziina kuu noqoto. haddaba hadday jidhka sare maradu asturto, cawrada hoosena akhlaaqda asturta. qofku hadduu akhlaaq leeyahayna waa asturan yihi, hadday akhlaaqdu kugu yartayna cawradaadaa muuqata. dadka badh baa markuu waddada kaaga soo baxaad sodhanaysa ka weeco. nebigu calayhi salaatu wasalaam qaar buu wuxuu yidhi si fiican u salaamagaasay ku tiri caaisha, sawkii ninkan aad warkaa ka sheegtay bi'sa akhul cashiira buu ku yidhi. markaasuu yidhi waa kuwa sharkooda lagaga nabadgalo. yacni dadka badh baad isku dayaysaa the minimum, wakhtiga ugu yar inaad la qaadato, waayo waxaad isleedahay keliba nabadgeli maysid haddaad wakhti badan la sii joogto. sidaa awgeed qof kastoo inaga midi subaxii markaad toosto waad wejigaad dhaqataa, afkaad cadayataa, waad isnadiifisaa. haddaad nin qolada sare ah tahayba waad isa sii buufbuufisaa. waxaasoo dhan waxaad u samaynaysaa aadamahaad u tegaysaa inaanu ama qur'aan qurux badnayn kaa helin ama muuqaal fool xunle aan kugu arag. waxa ka qurux badan jamaalul afcaalka, in dhaqankaagu qurux leeyahay ayaa ka qurux badan marada sare la xidho. taasaa u baahan inaad dadaasho oo aad isku daydo. qof waliba wuu isogaya ceebihiisa, qof aan is aqooni ma jiro. mostly waad isgaranaysaa meelahaad hanjafka ka gaaban tahay. haddaba waxaad u baahan tahay intaanad cadayga iyo marada iyo cadarka iyo shaambooyada ka fakerin, inaad ka fakerto qalbiga iyo saaad u taahirin lahayd, saad naftaada uga dhigi lahayd naf rabbaysan. ilaahay wuxuu leeya yaa bani aadama qad anzalna calaykum libaasan yuwaari sawaatikum wariisha wa libaasu taqwa dalika khayr. waa reer nebi aadama waxaan idiin soo dejiyey baa ilaahay leeyahy libaasan yuwaari sawaatikum, maro amahu aa ku qarin kartaan cawradiinna, iyo wariishan baa ilaahay yidhi, iyo ku laysku qurxiyo. laakiin waxaa la sheego kale wa libaasu taqwa dalika khayr baa la yidhi. huga taqwada, huga dhaqanka iyo akhlaaqda iyo alla ka cabsiga ayaa ka khayr badan waxa kale oo dhan. waxaan leenahay markaa waa laba hu oo la wada qaatee yuu noqon ninkaad muhiimadda siinaysaa kan sare.
hooyada aabbaha ilmaha maryo fiican ma loo talo ciidii maro ma la siiyey innaga dhammaanteed waxaad moodaa ka muuqaalku inuu inagu badan yahay dunidan materialistkii aynu nimina dee dadkaba jeebkiisa lacagta ku jirta ku qiimeeya iyo kursiga uu fadhiyo oo humankaba waxa loo kala fadilaa sida jeebabka lacagta ku sitaan u kala badan yihiin laakiin lacagtu waa maadaadkan dhulka yaalla ka mid ah insaanka sayidka ah meesha tan insaannimaduna waxay ku dhammaystirantaa bacda alcaqiida waalcibaada dhaqankaa dhammaystira gaayada bay yidhaahdaan markaynu ka nimaadno bacda rida allah gaayada laga leeyahay akhlaaqduna waa buluuqi alkamaali albashari wasacaada taama bay yidhaahdaan waa in qofka la gaadhsiiyo aadamnimada dhammaystiran aadamnimada dhammayska tiran leh waa in qofka la gaadhsiiyo walidaalika baa waxaynu tilmaamaynaa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam min dalaa'ili nubuwatihi waxaa ka mid a xusn alakhlaaq waxyaabay culammadu u daliishadaan nebinimadiisa bal qabla almucjisa dad baa ku rumeeyey dhaqankiisa daraaddeed oo nabigu calayhi salaatu wasalaam kamaal bashariya buu lahaa qof dhaqankiisu uu dhammaystiran yahay buu ahaa qof ilaahay taskiya siiyey ilaahay nadiifiyey oo xumo badan ka nadiifiyey buu ahaa saa awgeed waxaynu leenahay gruubkii koowaad ee muslimiinta ee islaamnimo nebinimadiisa waxay u daliishadeen dhaqankiisa khadiija radia allahu canha markuu qaarulxiraa ka yimi ee waxyigii u horreeyey ku soo degay isagoo kurbaysan uu yimi waxay u daliishatay nebinimadiisa iyo dhaqan wanaaggiisa kallaa wallaahi maa yukhziika allahu abadaa bay tidhi ilaahay baan ku dhaartay inaan rabbi weligaa ku hoojinaynin sababtu waa maxay innaka la tasilu raxam waxaad ahayd bay leedahay mid qaraabo xidhiidhiya oo qofka culayska ka qaada oo kaan waxaysanin macduumkaa wax siiya oo martida soora oo yani waxay sifaynaysaa dhaqankii akhlaaqeeda u lahaa akhlaaqdani bay leedahay waxay tilmaamaysaa qof alla doortay inaad tahay qof xumo ku soo socdaan ma u muuqatid bay ku tilmaamaysaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wasfiga ugu weyne uu nebiga qur-aanka ugu qoray waa wainnaka la calaa khuluqin cadiim waxaad tahay mid ku sugan wainnak waa jumla ismiya adawaat tawkiid lagu bilaabay xarafka la isticmaalay waa calaa alculuw waxay yidhahdaan waxaan oo dhamme waxay tilmaamayaan baa yidhaha fi cilmi luga marka la eego nebi maxamed akhlaaq dhammaystiran diin dhammaystiran inuu ku sugan yahay ilahay wuxuu leeyahy wainnaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq dhammaystiran mid ku sugan baa tahay idan waxaynu leenahay akhlaaqdu waa min dalaa'ili nubuwaba waxyaabaha loo daliishada nebigu inuu nebi yahay bay ka mid tahay waxaa kugu filan xadiidkii bukhaari ee hiraklis boqortooyadii ruum ninkii haystay abu sufyaan oo gaal ah waan muslim ahayn ayaa la waraystay markii waraaqdii nebigu uu diray ay u tagtay calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi cidima ka joogtaa qoomkaa oo waxaa la soo helay 6 nin dabeetana abu sufyaan baa la waraystay warkii abu sufyaan la waraystay la weydiiyey hiragal 13 ama 14 su'aalood buu weydiiyey intiiba wuu uga jawaabay waxaanay wada tilmaamayaan dhaqankiisa wuxuu hiraklis leeyahay markaa fain kaana maa taquulu xaqa waxa ay ii sheegteen hadday run tahay fasayamliku mawdaca qadamaya haatayn wuxuu hanan doonaa halkan aan jooga buu leeyahy waan ogaa in nebigu soo baxayo laakiin maan moodayn buu leeyahy inuu idinka mid yahay ee haddaan gaadhi karaya buu leeyahay waan isu xambaari lahaa waan isku dhibi lahaa inaan gaadho cagihiisaanan maydhi lahaa buu ku tilmaamaya waxa uu sheegay abu sufyaan waxay u badan yihiin dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u dhaqmayay biografigiisa markii looga warramay buu wuxuu ka daliishaday inuu nebi yahay heraklis wuxuu ka daliishaday biografiga nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nebi yahay abidar saxaabigii la odhan jiray markuu soo diray walaalkii uu yidhi war bal nin baa maka ka soo baxay oradii soo waraysa ninka xaalkiisa xadiiska kale bukhaari ku yaala
وحليه ولالكي ونيسوان صعدي أوانمي دبتنا نكي بان دقيستي أبو ذر بكسر نغضي أبو ذر وحكوي وار محط كسارك تنكي رأيته يأمر بمكارم الأخلاق بي waxaan soo arkay nin dadka faraya dhaqamada kuwa ugu fiican ama u qurux badan leh nin faraya baa soo arkay saawgeeda ayuha alxiba waxaan leenahay haddii nebiguba risaaladiisii calayhi salaatu wasalaam uu cinwaan uga dhigay inamaa bucithtu liutamima makaarim alakhlaaq aw saalix alakhlaaq labada riwaayadood ba imaamu axmed baa warinaye hadduu uga dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam cinwaan الرسالة inay tahay akhlaaqda inuu dhammaystiro waxa loo soo diray waxay culimadu yiraahdaan akhlaaqduba waa saddex qodob bay sheegaan iyagoo aayad quraan daliishanaya waxay dhahaan waa badl المعروف وكف الأذى واحتمال الأذى bay yiraahdaan akhlaaqiintaas ku dhantay bay yiraahdaan waa qofkoo samaha sameeya badl المعروف wixii urfiga ku fiican ee macruufkee dadku wada qirayo qofkoo sameeya iyo qofkoo dhibtiisa dadka ka haysta aan isaga wax dhibi ka soo fulin iyo qofkoo dhibta dadka kale kaga timaada u dulqaato aan cadhoon ama markiiba boodin waxay yidhaahdaan akhlaaqiintaasay ku koobantay intaana waxa laga qaataa bay yidhaahdaan aayadda qur-aan ee ilaahay leeyahay khudi alcafwa wa'mur bilcurfi wa'rid can iljaahiliin ilaahay wuxuu nabigiisa ku yidhi khudi alcaf wa'mur bilcurf wa'rid can iljaahiliin cafwiga qaado dadkana samaha far jaahiliinta iyo wax magaradka waxa kaa soo gaadhana ka jeeso qurux ma laha qofkii farta kugu soo taagaba inaad shan ku taagtaa casriganna saasay u badantay wadaadkii wadaad kale eray ku yidhaahdaa isna waa inuu toban ku yidhaahdaa siyaasigii siyaasi kale eray ku yidhaahdaa isna waa inuu toban ku yidhaahdaa qabiilkii qabiil kale laba eray ka yidhaahda isna waa inuu shan gabay u tiriyaa wixii noo dhami waxa weeyaan haddii midh la yidhaahdo waa in laageenaan idhaahdo laakiin nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo rasuulah oo ilaahay waxyi ku soo dejiyey oo kamaalil akhlaaq leh ayay waxay lahaayeen waa saaxir iyo waa kadaab iyo waa kan markaasaa ilaahay leeyahy waa acrid can iljaahiliin lama odhanin nimanka kule waa saaxir iska dhici iyo nimanka kadaabka kugu sheegaya kan sheegaya ee ilaahay wuxuu ku yidhi waa acrid can iljaahiliin wax magaratada waxbaha u dhigtaaga idan dhaqanku wuxuu u baahan yahay nafta la tababaro dhaqanku macluumaad maaha waa laga yaabaa in aqoontaadu badantay macluumaad tiro badan inay information badan inuu madaxaaga ku jiro ama mid diineed ha ahaado ama mid dunawiya ha ahaado laakiin aswa naas baad noqon kartaa haddana iyadoo informationkaagu tiro badan yahay yes informationka tirada badan leh wuu ka qayb qaadanaya haddaad trainingkaagu fiican yahay haddii dhaqankaagu wanaagsan yahay waxaa asali markaa wuxuu yahay qofka muslimka ahi inuu yahay mid dadka khayrka gaarsiiyo kow khayru nnaasi anfacuhum ayuu nabigu tilmaamaya dadka waxa u khayr badan anfacuhum linnaas dadka ka ugu anfac badan leh waxaa kaloo nabigu tilmaamaya almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih muslimka dhabta ahi waa qofka muslimiintu ka nabadgalaan carabkiisa iyo gacantiisa mid baa yidhi maxaan qabtaa markaasuu nabigu yidhi sidaa ye markaasuu yidhi haddaan kari waayana markaasuu yidhi sidaa ye markaasuu yidhi haddaan kari waayana nabigu markii dambe wuxuu ku yidhi dee dhibtaaduun dadka ka hayso haddaad wax matarannimo isku og tahay gacantaadii afkaagu ha kuu xidhnaadaan haddaad waxba kala qaban karin ummadda haddaad waxba ku kordhin karin sawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya akmalu lmu'miniina axsanuhum akhlaaqa xadiidka tirmidi iyo abi daawuud sheekh albani saxiixa ku tilmaamayo insha allah xadiistan tilmaamay oo dhami ama waa xasan ama waa saxiix wuxuu nabigu tilmaamaya inna min khiyaarikum axsanukum akhlaaqa saxiixinka xadiidku yaalla inna min khiyaarikum xulkiina waxa ka mid ah baa ilaahay leeyahay dadka marka la miiro inta xulka ahi waxa weeyaan buu nabigu leeyahay axsanukum akhlaaqa waa inta dhaqankoodu fiican yahay waxa wada taqaaniin xadiidka 40 aynu ku wada dhiganno
دور صحابي النبي كوي دهدين أوصيني 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 رواية أبو ذر كنت الله 40كم حي شيء اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفرصه وحلت الماء إلهي سيد ولا نقم لها إلهي سبحانه وتعالى كدور سنارتي سي غضب كي سي عدد السليدو